السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تدوينها الصوماليات وعبد محمود قلع يا برنامج كيدين كجاي من جري معهد كوالد نمو وحيسكو دايا إنو كشقيو دناها qoyska iyo caruurta Soomaaliyeed sidii loo horumarin lahaa daryeelkooda fayoobidooda iyo horumarkooda dhinac walba wixii fikradaha oo aan isleenahay waxbay tarayaan dadka Soomaaliyeed ayaanu halka ku soo gudbin doonaa hadii la haydmo waxaynu ka hadlaynaa mowduuca la yiraahdo qorsheynta qoysku waxa weeye wax muddo dheer soo jiray hadda laakiin wadamadu waa ku kala horeeyaan qaarna aad bay u qaateen qaar meel dhaxay ka taagan yihiin qaarna wax macna la kama jiraan ama waxa la oran karaa kama dhaqan gelinba sida dalkeena oo kale inaga inaanu dalkeena ka dhaqan gelina waxa ugu wacan dawlad la'aanta iyo baaba aynu ku jiray muddo dheer laakiin hadii dawladu jiri lahayd shaki ma leh inay arintaasi ay dhaqan geli lahayd waxa kale oo jira oo dadka Soomaaliyeed iyo dad kale oo muslimiin oo badan ba ay ka qabaan shaki inaanay arintu aharin islaamiya ahayn oo magaranaysa ay dambi kala kulmayaan laakiin culimadu markay baartay waxay ogaatay arintaasi inaan dhibaato ku jirin ayay ogaatay baaritaankaana waa mid xagga traditionka ama caadada islaamka ku saabsan oo mar walba markii mas'alo cusub timaado culimadu waa baartaa qiil bay u heshaa marka ama qiil bay u weeydaa sidaas uu ku dhashay shareecada iyo fiqiga islaamku saas uu ku dhashay mar walba baahi timid ay culimadu ka jawaabaysay wuxuu dhashay intii ka dambeysay intii rasuulka dhimashadiisa ka dambeysay ayuu fiqigan ballaaran oo maanta aad aragtaan iyo madaahibaha iyo wax oo dhan ay dhasheen waxa keenayna waxa weeye baahida dadku ay marba mas'alada ka hor imaanaysay u qabeen in loo fasiro loo sharxo oo ay helaan waxay ku gamaan oo ku qancaan marka culimadu badana aragtiyuhu waa kala duwan yihiin ila dadaal baa la sameeynaya qof walba iyagoo isku meel u socdo oo isha ay wax ka soo qaadanayaan ay tahay xadiiska iyo magaranaysa iyo quraanka kariimka iyo asxaabtii iyo dadkaasi waxyaabihii iyo caadooyinkii sida u dhaqmi jireen waxyaabo aynkaas haddana waxa weeye siyaabo kala duwan baa loo fasirayaa arintan marka ku saabsan waxa loo yaqaano qorsheynta qoyska waxa weeye arin iyada lafteedu aragtiyuhu ku kala duwan yihiin laakiin aragtida xoog badan baa jirta iyo aragti xoog yar aragtida marka xoog galo oo aad loo qaatay waxa weeye inay bannaan tahay dhinacyo badan bayna culimadu ka eegeen oo daliilo badan iyo magaciisi ayay u soo qaadeen horta berigii rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxa jiray baa la yiri xadiis baa jira waaga inooga yimid oo nimankii muslimiinta ahaa waaga asxaabtii ay rasuulka u yimaadeen arrinay sameyn jireen ay u sheegeen markay dumarkooda la galmoodaan arintaas oo ahayd inay u diidaan inay shahwada dumarka ku dhacdo ay ka soo saaraan rasuulku arinta kama hadlin baa la yiri culimadu marka waxay leeyihiin haddii arintu dambi tahay rasuulku kama aamuseen ama waxaan la ogolaan karin haday tahay uu ka hadli lahaa laakiin uu iskaga aamusay waxaana loo qaatay taasi inay tahay uu ogolaaday waxa jira aayaad badan oo quraanka ah oo ka hadlaya in ma garanaysaa qofka muslimka aanu ilaahay dib la doonayn aayaadkaas waa fara badan yihiin maalin walba aynu akhrina waa la yaqaanaa kuwa wax mashaakil oo ka taagan ma jiraan inaan qofka ilaahay dib la doonayn wax walba ma garanaysaa inay noloshu u hagaagsanaato u fududaato ujeedadu ay tahay taa aad iyo aad ayay maaragtay diinteenu u sharxaysaa waxa kale oo jira in sideedaba qoyska muslimka ah la doonayo inuu ku noolaado farxad iyo ciriiri la'aan iyo dhibaato la'aan inuu ku noolaado la doonayo iyo sharaf iyo magaciisi inuu waxyaabo caynkaas ku noolaado qoysku maaha inuu cadiban yahay inuu dhiban yahay inuu seexan waayo inuu harsan waayo in kurba disho in ma garanaysaa ceeb ay iyo waxa diintu waa ka soo horjeedaa marka iyagoo waxyaabahaas oo dhan ka duulaya culimadu ayay waxay xaqiijiyeen in qorsheynta qoysku ama family planning wax loo yaqaana ay tahay arin aan islaamku diidaynin waxa kale oo jira in maanta wadamada muslimiinta ah dhamaantood wadan kasta oo dawladu ka jirto arintaas waa laga hirgeliye ha ku kala xoog badnaadeen laakiin dawlad walba qorshe leedahay arinta ay ku xaqiijiso wax kaga qabato haddaynu hadda fiirino wadamada bariga dhexe oo kale
iyo waqooyiga Afrika oo muslimiinta ah caruurta u dhashaa waxay u dhaxeeyaan 3 ilaa 4 qoyskii dad ka soo qaado ilaa Tunisia iyo Algeria iyo halka ilaa aad ku timaado maxaan ku yiraahdaa Masar Falastiin dhulka ilaa maxaan ku yiraahdaa Iraq dhulka khaliijka dhulkaas oo dhan wadanka kaliya oo arinta ka baxsan oo caruur inta ka badan dhala waxa lagu sheegay inuu yahay wadanka Yemen xagga Asia bari markaad sii aado waxa Hindiya iyo Pakistan ay tagto iyaga laftoodu waa ka sii yaryihiin ba inta waxa laga yaabaa inay caruurtoodu labo celcelis ay tahay markaad sii socoto Malaysia iyo Indonesia aad tagto iyagana waa ka sii yartaa Indonesia celcelis waa laba caruur qoyskii Malaysia waa ka sii hooseysa oo wax laba ka hooseeya wax laba ka hooseeya weeye marka arintu waxay muujinaysaa in runtii dadka muslimiinta ah iyagoo duruufahooda ka duulaya ay aqbaleen inay arinta qaataan laakiin wadankeena saan hore u xusay kama ay hirgelin dadkeenuna baraarug kuma qabaan waxaana inoogu wacan waa silaca iyo dawlad la'aantii dhibaatada ay haysatay muddada dheer ayaa sabab u ah dad kalena xagga diinta ayay cabsi ka qabaan waxay leeyihiin armaanu dambaabnaayo caynka waxa jira marka haddaynu Soomaalida laba u kala qaadno kuwa qurbaha yimid iyagu badanaa waa sameeyaan qaar badan markii hore waa iska diidaan laakiin markii hadhowto ay arkaan in culays arintu ay tahay ayay sameeyaan waana ku khasban yihiin ba inay sameeyaan sababtu waxa weeye guri qaada iyo baabuur qaada ma helayaan baabuurka ugu weyn oo meelahan lagu wato hadda minivan-ka loo yaqaano ilaa 7 qof buu qaadaa haddaad 8-9 caruur leedahay adii caruurtaadii meel ma wada tegi kartaan meelaha lagu ciyaaro ma geyn kartid meel isuma raaci kartaan maalmaha farxadda isma raaci kartaan waa ciriiri iyo dhibaatay ku noqonaysaa guriyihiina waa yareerihiin guri qaadaaba ma jiro guri walba wax ka ugu badan 3 qol ka badan ba arki maysid markaad 7-8 caruur leedahay adii islaantii arintaas waxay noqonaysaa ciriiri balaaran bay noqonaysaa marka Soomaalida qurbaha ku nool ama Europe iyo North America iyo meelaha arinta iyagu way qaateen inkastoo intooda badan markay caruur badan dhalaan oo 4 3 5 6 ay dhalaan ay yiraahdaan wallahi intana waa inagu badan tahay inuu ay marka ay joojiyaan laakiin badana waa muuqata inay sameeyaan markaynu u soo noqono Soomaaliya waxaan u maleynayaa inaan arintuba ama fikraduba meesha aanay oolin cidna ka wada hadlin sidaan u sheegnayna laba sababood baa u sababaho midna waxa weeye dawlad la'aanta in haysatay iyo sida aynu u silicnay oo wax walba inooga dhumeen iyo ta kale oo dad badan oo la xagga Ilaahay baa maaragtay aanu ka baqaynaa marka ta dawlad la'aanta waa iska cadahay oo awoodo ma jirto laakiin balta xagga Ilaahay haddii laba arrimood balaynu eegno midda koowaad waxa weeye Soomaalidu waxyaabaha ay sameeyaan oo qabyaaladu ka mid tahay oo isdilku ka mid yahay oo dhucu ka mid yahay oo laaluushku ka mid yahay oo xoolaha dadweynaha la xadayo ka mid yihiin runtii anigu dambiye ka waaweyn kuwa ma arko haddii aynu marka dad muslim oo mukhlis ahaan lahayn oo wanaagsan dambiyadaasaynu diidi lahayn inaynu isdilo dhiigga daadino isdhacno isku duulo inta isu hanjabayno iscaayayno dambiyada kuwa ka waaweyn waxay yihiin anigu ma garanayo marka hadday xag alle ka cabsi iyo magaranaysa diinto la sharfayo tahay waxaan u maleynayaa kuwaasa marka hore kaalinta koowaad gali lahaa oo magaranaysa aynu aad iyo aad u tixgelinayo dad muslimiin oo yacni dhinac walba diintooda ka ilaashanaya haddaynu caynkaasi ahaan lahayn laakiin markaynu dhinacyo badanna aynu ma garanaynaa aynu waxyaabaha xunna saa ugu dhiirano wixii wanaagana aynu diidno waa dhibaato waxaa kale oo meesha ku jira waxaynu runtii yeelanay dhaqan ah in la diido in wax la nidaamiyo oo waxyaabaha dadka anfacayo oo loo hoggaansamo oo laga wada shaqeeyo arrintaas waa inagu yartaa haddii aan wax la nidaamina waxaynu noqonaynaa waqtigan maanta la joogo waa adduunkan saa u nidaamsan oo waqtigan la joogo haddayna waxba nidaamin waxay noqonaysaa runtii waxay noqonaysaa wax laga xanuunsado arrinta qoyska marka dad badan baa baraarug ku qaba oo ay tahay waajib inay ka hadlaan oo ay ka mid tahay dadka aqoon-yahanka ay ka mid tahay dadka qoysaskii arrimahooda u dhaqdhaqaaqoo daneeya ay ka mid tahay culummadeenna xataa culummadeenna waa inay geesinimo u yeelato
oo hadasho sababtu waxa weeye haddaan hadda fiiriyo dadyowga kale oo ma garanaysaa aan soo sheego wadamada Asia iyo Carabta iyo anigu kolleyba muddo badan baan dibadda joogay dibaddaana ku arkaa waxqabadkooda marka la inoo barbar dhigo xagga islaamka say u horumarinayaan runtii iyaga waxqabadkooda aad u ballaaran yahay waxqabadkeenu dadka qurbaha jooga xagga islaamka waynu tukanayo caynka laakiin institutionno ama hay-ado adag oo xagga islaamka horumarinaya kuma arag iyagu college ay sameeyeen maahid bay sameeyeen masaajid badan bay dhiseen masaajidada waa xoojiyeen oo waxay noqdeen caruurtoodii kuwa ay ku tababaraan oo ma garanaysaa ay dhaxlaan oo halkaa ka sii wadaan meelaha qaarkood inkastoo aynu ku badanahay haddana ma badna awoodda aynu xaggaas ama waxtarka xagga aynu ka samaynay ama horumarka aynu ka samaynay ma badna umayna diyaarin dadkii dhaxli lahaa oo hawsha qaban lahaa iyagoo isku duuban oo ma garanaysaa community ama beel ah beesha uma jeedo tii qabyaaladiyo qurunka halka aad wadaan waxaan u jeedaa beel dad isku dan oo isku meel jooga ayaan u jeedaa marka ma muuqato taasina marka waxyaabahaas oo dhan waxay muujinayaan runtii marka laga eego xagga ficilada aynu samayno oo ma garanaysaa diinta xadgudubka ku ah markaynu samayno oo aan soo sheegay iyo markaynu samayno sida aynaan ma garanaysaa ugu dadaaleen islaamka markaynu waddanka dibadda joogno oo yacni sida dadyow kale ay u dhisayaan hay-adahooda ma garanaysaa iyo waxyaabaha dhaxalka reebaya oo ay caruurtooda uga tegayaan runtii markii labadaa la eego waxaa muuqata dadaalkeena xagga islaamku inaanu xoog badnayn waynu salaad badan nahay dadka inagaa ugu quraan xifdi badan inagaa ugu caynkaa badan laakiin haddana markii wax qabad dhaba ay timaado waxaa muuqata inaynu dambayno waxaa markaa jeclaan lahaa arrinta qoyska Soomaaliyeed aan usoo noqdo mawduuca inuu rafaado dhibaatooda ma aha meel walba waxaan arkaa runtii markaan TV-yaasha ama meelaha ma garanaysaa baraha bulshada dad badan oo qof walba cabanayo 9 caruur aan haystaa 10 baan haystaa 2 xaas baan leeyahay 12 caruur aan leeyahay waxaan siiyo ma hayo waxaan marka kalifka caynkaas ilaahay ma abuurin dadkeena marka waxa loo baahan yahay inay baraarug galaan oo ay yiraahdaan war maxaa ilaahay inama kala fina maxay naftaydu awoodi kartaa maxaan ka bixi karaa arintuna ma aha qof dadkuna khiyaar bay leeyihiin qofkii qaadanaya iyo kii iska diidaya iyagay jirtaa laakiin waxa laga maarmaana in baraaruga iyo wargelinta iyo dadka in loo sheego inaanay rafaadka faraha badan marin iyo inaanay dhibaatada marin yani inaanay maaragtay ahayn wax diina inaanay ahayn oo ilaahay aanu la doonayn inay maaragtay cusri iyo dhibaato iyo culays iyo magaranaysaa rafaad aanu ilaahay la doonayn ee uu la doonayo fudayd iyo magaranaysaa sharaf iyo magaranaysaa kurbalaan uu la doonayo intaasaan rabaa inaan walaalayaal kusoo gabagabeeyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.